runtii waxaa maanta aniga farxad iyo sharaf ii ah inaan igala soo qayb galo shirkan taariikhiga ah oo 17 sano kadib Puntland ka qabsoomay siday dib ugu eegto marxaladihii ay soo martay horena ugu eegto marxaladaha cusub ee soo socda waxaana aad ugu bogaadinayaa madaxweynaha Puntland fikraddaas iyo hirgelinteeda iyo goobta lagu qabtayba aad baan uga mahad celinayaa runtii gaalkacay way mudnayd wayna ku habooneed shirka intaan la eeg inay qabato waana magaalooyinka waaweyn ee Puntland bay ka mid tahay oo shirar intaan ka weyn marti gelin kara runtii intii aanan dhageysan go'aamadii aad soo saarteen muddada 5 biri ah u fadhideen waxaan islahaa wax badan aad ku kordhisid laakiin waxa ay soo baxay inay waxba idan hambayn meel walba oo haboonayd in laga hadlana aad ka hadasheen runtiina waxa ka soo baxay dukumeenti aad u qiimo badan oo tilmaamaya sidii Puntland loo horumarin lahaa dowrka Puntland ay kaga leedahay Soomaaliyana qayb looga qaadan lahaa waxa aad ugu faraxsanahay inaan halka maqlo in himiladii Puntland ay ahayd inay dhalato dawlad federaal Soomaaliya inay kaalin mugle ka qaadatay oo 17 sano kadib iyadoo ay dhalatay ay maanta halka dib ugu shirayaan maanta waxa la gudboon dadka reer Puntland sidii loo taabagelin lahaa dawladda federaalka dhismaheedii waqti badan baa ku soo baxay hanti fara badan oo reer Puntland ku soo baxday dhiig fara badan oo reer Puntland ku baxay laakiin waxay u baahan tahay taabagelin iyo toosin iyo horumarin waxa xaqiiqo ah bulshada reer Puntland inay bulshada Soomaaliyeed meel muhiim ah uga jirto waxay muujiyeen dawladnimo waxay muujiyeen inay ismaamuli karaan waxaana dad badan oo Soomaaliya aaminsan yihiin inay dalkana samata bixin karaan waxaan aad inugu boorinayaa madaxda iyo shacabka reer Puntland in xaaladda dalka Soomaaliya maanta maraya si wanaagsan loogu istaago dalkana samata bixintiisa waa samata bixinta Puntland runtii waad ogtihiin labada marxaladood oo taariikhda dawladda Soomaaliyeed muddadii burburka ugu muhiimsaneed waxay ahayd dhisidii dawladda federaalka 2004 degidii in lagu shaqeeyo magaalo madaxda Muqdisho iyo xilligii kala guurka ee Soomaaliya ka bixaysay ku meel gaarka oo u ambabaxaysay inay dawlad rasmi noqoto waad ogtihiin hoggaanka inta ka shaqeeyay xubnaha ugu muhiimsan reer Puntland bay ahaayeen meel kasta oo adag meel baa ka sii adag waan dareensanahay dadka reer Puntland wax badan inay tabayaan laakiin wax badan oo maanta Soomaalidu ay haysan bay haystaan nabad bay haystaan kala dambeyn bay haystaan maamul wanaag bay haystaan hadda waxay ila tahay qofku wuxuu haysto inuu walaalkii la jeclaadana waa muhiim waxba hadalka badin maayo waxaan salaan inaga sidee dhammaan xubnaha reer Puntland ee dawladda federaalka ka tirsan qaas ahaan xildhibaanada waxay aad ugu faraxsanaayeen shirkiina waxay aad u bogaadinayaan oo sugayeen natiijada ka soo baxaysa runtiina waxay ku farxaan waa soo saarteen shirarka dhimanna waxaan rajaynayaa inay dhamaystir u noqon doonaan shirkan hadda dhacay waxaan aad inagu bogaadinayaa inaan hadalka inagu badinayn hawsha aad qabasateen intaan iyo in ka badanna waad kartaan dalkiina inaad dhisataan dadkiina inaad u soo jeesataan in gacmaha la iswada qabsado in nabadgelyada iyo midnimada iyo horumarka laga shaqeeyo aad baan idin salaamaya waad mahadsantihiin